وفد بلاغين وهجامين وقدوميها أول كومد سوماليلاند دكتور محمد عبد الجبوس وديواني ودنبيدا كورميركو قال بحين يدمان بقبلدا يدقمين كبري سوماليلاند أي ما تسدي لو كان لو سو دغيا مغالمada madaxda gobolka Soomaaliya Caynaba waftiga gudoomiyaha oo lagu hortagay duleedka shisheeye magaalada Ceeldaabo ku dhawaad 20 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Soomaaliya ayaa ay dadweyne aad u fara badan oo ruuxaya astaamaha gaarka ah iyo weliba caleemo qoyani si diiran u soo gudbiyeen mas'uuliyiinta iyo waftiga ayaa ay ugu horreysay laga ugu soo dhaweeyeen dadweynaha reer Caynaba oo waftiga u soo doobiyay gudaha magaalada kuna soo wareejiyay jidadka iyo shaariciyada waaweyn ee magaalada waxaana ay waftigu isugu soo biyashubteen xafiiska ururkan ku yeelan doona magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Soomaaliya iyadoo ay halkaas ugu horreyn ka hadleen uqaal aqoonyahan haween iyo dadweyne aad u tiro badan oo kale gudoomiye ku-xigeenka ururka ummadda ugu horreyn halkaas ka hadlay madashaas hadallo ka soo jeediyay ayaa ku dheeraaday sababaha keenay in ururka ummaddu xafiisyo noocan oo kale ah ka furto dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka ururka ummadda ee gobolka Soomaaliya Xasan Aadan Geedi ayaa isna waftiga uga mahad celiyay kormeerka maanta ku soo galay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Soomaaliya ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka ummadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa xadiga ka tiray xafiiska ururka yeelan doona magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Soomaaliya isla markaana halkaas mad aad u bilaabay uga soo jeediyay shacabkii aad ka tiro ee badnaa halkaas ku soo dhaweeyay مستقبل الصومالي لأن أيوستانين كل يرانيا كم با العقلة كم با الحقة كم با عثارة أي الرعبة إذا بنت بلكة بعد لا ينوكو عندي waftiga ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalooyinka Og wadaamago iyo Ceeldaab iyadoona halkaasi ay si rasmi uga furteen xafiisyo noocan oo kale ah si kastaba ha ahaatee markii ugu horeysay ee gudoomiyaha ururka ummadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo waftiga hogaaminaya kormeer noocan oo kale ah ku soo gaareen magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Soomaaliya Maxamed Aadan Dirir telefishinka caalamiga Somali Channel Caynaba.